أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست ninka ma u bannaan tahay inuu xaaskiisa naasaheeda nuugo ama carabkiisa xubinka taranka xaaskiisa uu geliyo sidoo kale haweeneyda inay xubinka taranka ee zawjkeeda ay mudmuudsato arrimahaas sheekhan loo ramo jazakumullahu khayran waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka mid ah su'aasha inaad ka yaqiiqsateen inaad ka yaqiiqsanaysaan oo la yaabantihiin bal yaaba bal qaar idinka mid ah waxa laga yaabaa inaad leedihiin war waxa masaajidka loo keenayaa waxaas maxaa sheekha loo weydiin laakiin in badan oo mujtamaceena ka mid ah baa masaa'ishan sameeya oo ay haysataa khaasatan dadka xogaa iskuullada dhigtay yara ilbaxnimada iyo tiknoolajiyada iyo waxaan adduunyadan la dhex galay tiknoolajiyadu ma keenin laakiin dhexgalkan adduunyada la dhex galay baa waxaa soo kordhay dhaqamo fara badan oo laga keenay wadamo kale su'aalayiin marka war wixii waa la arkay oo dadkii baa lagu arkay telefishinkii baa laga arkay oo dad baa lagu arkay oo gaaladii baa lagu arkay oo joornaaladii baa qoraya oo dadkii mutaqafiinta wax bartay baa akhrinaya war sheekh maxaa diinta ogoshay maxaysan ogolayn hadii la yiri soo xaq ila caday u baahan ma wax walba shariicadu waa inay qeexdo waa xaraan waa xalaal taa haddaan kaga gudbo xogaa dhibsiga aad su'aasha dhibsateen inta haddaan kaga gudbo jawaabteedu wax waaye xubinka taranka ama ka dumarka ha ahaado ama ka ragga ha ahaado afka looma dhaweyn karo ليش؟ لأن وحوي ومحل القدر ماشي ومال وسخ ماشي ومال وسخ وماشي نجاسات كسو بحيين ومال انت بدن تشير مثله مال نوعا سو كلتا أفكا oo madkhalkii jirka intiisa kaliya calooshii iyo wax uga galayeen in la aado maya wax kale iska dhaafay xubinku markuu ka jahayo waxa la yiri gacanta midigta ku qabanina afla aad iska dhaafay gacanta midigta ku qaban mas'aladaasi marka mas'ala sharcan banaan ma aha waana nooc adab darro iyo akhlaaq xumo ah waa nooc mucaasharo khaldan oo shariicada khilaafsan ah looguma talagelin Allah tabaaraka wa ta'ala xubnaha ayagu isugu talagalay afka xubnihii meesha loogu talagalay ma aha qodobka markaan inta kaga gudbo mas'alada xigta ee raacsani waxay ahayd ninka xaaskiisa naaskeeda taa iyada ah lil istimtaac iyo muxuu ahaayay dib male taabashada iyo afgelinta iyo muxuu ahaayay salsalaaxida waa nooc istimtaaca kamida wax dhibana male culimadu waxay ka doodaan kutubta fiqiga qortay culimadu waxay ka doodaan hadduu caana ka yimaadaan oo uu caanihii nuugo liqo ma ka furantay mise kama furmay ma ka furmaysaa mise kama furmayso على الراجح كما فرميس لأن عانوه وحي ساميان ilmuhu intuu yar yahay oo naaska nuugayo oo cuntabaranin bacaanaha uu nuugay ay saameeyaan laakiin nin weyn oo garle caanuhu ma saameeyaan xurmana kama dhalato allahumma fi hala khaassa oo xaaladii muxuu ahaaye Salim mawla Hudayfa fi sahih al-Bukhari hadithki xaalad noocaas oo kale xaaja ay timaado oo Suhayla nabigu ardicihi tahrumi alayhi xaalad khaas way taas أما أصل أهان مسألة واساسو عانوهنا wax saameeyna ku yeelan maayaan kana furi maayaan dalaaq maxanu jeedaa xarigiina jabin maayaan saas daraadeed waa istimtaac iska banaan hadii si ruuxu uu u baahdo khuruujan min al-khilaaf suu uga fogaado khilaafkaba caanaha inuu san liqin ayaa haboon
maadaama khilaaf meesha ku jiro caanaha liqitaankooda inuu ka fogaado ama inta kale sharcan wax diidahayo ma jiro waa mas'ala istimtaaca kamida sharciyada ay ogolaatay